waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena habeenimada waxaa ka mid ah diyaarado daroon ah oo lagu duqeeyay maanta caasimadda Imaaraadka ee Abu Dhabi Generaal Xuud oo si toos ah isugu dhibay dowladda federaalka ee Soomaaliya heshiisna la saxiixanaya maamulka Hirshabelle khilaafka madaxweyne Qoorqoor iyo xildhibaanadii mucaaradka oo hawada isku sii shareeray xilli dowlad goboleedka Galmudug uu shaaciyay inuu qabanayo doorashada 20 kursi oo kamid ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabka macallimo oo loo qaaday dalka dibadiisa iyo wararkii ugu dambeeyay oo xaaladiisa ayaan barnaamijkeena habeenimo ku qaada dhigi doonaa waxaa ka jira in khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay Dani iyo Axmed Madoobe oo sanadihii ugu dambeeyay ahaa mataana siyaasadeed kadib markii loolankii guddoonka golaha doorashooyinka qaranka ay isku khilaafeen 2 maalin ka hor Dani iyo Roble oo garab ah ayaa ka guuleystay mucaaradka intiisa kale iyagoona sheegay inay doonayaan in qaab gooni ah ay u xalistaan arrimaha doorashooyinka maadaama hadda Dani la hosgeeyay arrimaha doorashooyinka Axmed Madoobe ayaa la sheegayaa in arrinta markii loo adkaaday uu halka ka bilowday khilaaf labada dhinac qodobada ay kuwa kale oo xiiso badan ee barnaamijkeena ku daawan doontaan qodobada kale oo inoo harsan waxaa kamid ah khilaafka ka dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo dhawaan la xalin doono kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare cusub فلان داود ديتا مركو هذا صبوا تشانل كينا سبسكرايب لو فرقم بلا كسيادون وداودها كوباد برنامجينا ما سرد جنرال حود oo go'aan la filaan ah ku dhawaaqay kadib markii uu sheegay inuu la heshiinayo maamulka Hirshabelle oo in dhawaaraba ay soo hayeen Generaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn uga soo horjeeday Hirshabelle ayaa ku dhawaaqay inuu haatan diyaar u yahay inuu wada hadal rasmi ah la galo maamulkaasi iyadoo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya Xuud oo ay hareer taagnaayeen taliyaha ciidanka dhulka Generaal Maxamed Taliil Biixi iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeya xaqa ka maqan reer Hiiraan ay u raadinayaan qaab wada hadal ah dadku ha isku sirmina ogaada in la dagaali karo lana heshiin karo ayuu Generaal Xuud yiri sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray cid walba oo og waxa naga maqan in la helo isaga ayay dan ugu jirtaa annagayna noogu jirtaa Soomaali ayay ugu jirtaa insha Allah xaqaasna waan keenina ayuu intaas ku daray dhankiisa taliyaha ciidanka dhulka oo ka hadlay shirka jaraa'id ayaa soo dhaweeyay go'aanka uu qaatay Xuud si loo soo afjaray xiisadda bilihii la soo dhaafay ka jirtay halkaasi Generaal Biixi oo si hadlaya ayaa shaaca ka qaaday inuu beledweyne u tagay si xal loogu helo tabashada ay Hirshabelle ka qabaan qaar ka mid ah bulshada reer Hiiraan arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo Hirshabelle ay gudagalayso doorashooyinka golaha shacabka oo kuraas ka mid ah lagu qabanayo magaalada beledweyne si kastaba ha ahaatee xiisadan ayaa sababtay in beledweyne laga hor istaago madaxweyne Cali Guudlaawe oo aan wali booqan magaaladaasi tan iyo markii la doortay Hirshabelle dhinaca kale macallimo oo loo qaaday dalka dibadiisa iyadoo wararkii ugu dambeeyay xaaladiisa ay sheegayaan in hadda loo qaadayo dalka Turkiga afayeenka xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Ibrahim Macallimo oo shalay qaraacay midaamin ah dhaawac culus ka soo gaaray ayaa maanta loo qaaday dalka Turkiga sidii ay ogaatay shabakada calanka TV waxa garoonka diyaaradaha aadan cadde ka qaaday Macallimo diyaarad qaas ah oo kuwa caafimaadka oo xafiiska ra'iisul wasaaraha uga dalbay dowladda saaxiibka anahay ee Turkiga xaaladda caafimaad ee Macallimo ayaa laga tacaali doonaa dalka Turkiga kadib markii wax looga qaban waayay gudaha caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho Macallimo waxa uu dhaawac dartii ka jabay lugta waxa kale oo dhaawac ka soo gaaray gacan iyadoo ay jirtay jug xoogan oo xabadka ah dhiig ku celisay neeftana ku adkaysay sidoo kale dhanka lugta waxa uu mari doonaa qaliin halka gacanta aan la ogeyn inay u baahnaan doonto iyo in kale Macallimo ayaa axadii ku dhaawacmay weerar ismiidaamin ahaa oo gaari uu watay lala eegtay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho iyada oo nin xirnaa jaakad ay ka samaysan tahay waxyaabaha qarxa oo isku qarxiyay qaybta dambe oo gaari ka saarnaa ururka al-shabaab oo dagaal baan kula jira dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaana sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi qaraxa lala eegtay Macallimo ayaa dhaliyay shaki badan iyadoo dadka dowladda mucaaradka ku ah ay sheegeen in ka dambeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya dhanka kalena muxaafidka dowladda ayaa sheegaya sida war uu soo saaray gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir Cali Yare uu ku eedeeyay in ka dambeeyeen Imaaraadka Carabta oo qorshaha qaraxaasi lagu sheegay in la doonayo in isku dhufto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Roble oo hadda dagaal baani ka dhaxeeyo qaraxan ayaa la sheegayaa inay soo diyaariyeen Imaaraadka Carabta waxaana la sheegayaa inuu ku jiray qalabkii laga soo dejiyay magaalada Muqdisho asbuucii la soo dhaafay iyadoo Imaaraadka Carabta ay sheegayaan in alaabtaasi ay tahay alaab mucaawino ah
oo la doonayo in shacabka Soomaaliyeed lagu gargaaro. dhinaca kalena diyaarado daroon ah oo lagu duqeeyay maanta caasimadda Imaaraadka ee Abu Dhabi. qaraxyo ka dhashay diyaarado daroon ah ayaa maanta ka dhacay magaalada Abu Dhabi iyadoo Xuutiyiinta dalka Yemen ay ku dhawaaqeen howlgallo militari oo ay ka fulinayaan dalka isu taga Imaaraadka Carabta. walxayar oo duulaya ayaa la helay iyadoo 3 booyad oo shidaal qaada ay ku qarxeen aagga warshado sidoo kalena dab uu ka kacay garoonka diyaaradaha sida ay sheegeen booliska. 3 qof ayaa ku geeriyootay 6 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyada sida ay sheegeen booliska. dadka dhinta ayaana 2 qof waxay u dhasheen dalka India halka qofka kalena uu ka soo jeedo Pakistan. baaritaano hordhac ah oo ka socda gudaha dalkaasi ayaa tilmaamaya in walxayar oo la arkay ay ka yimaadeen diyaarado daroon ah kuwaasi oo ku kala dhacay 2 goob ayna suuragal tahay inay sababeen qarax iyo dab ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay booliska. dhanka kale Xuutiyiinta ayaa sheegay inay faahfaahin ka bixin doonaan howlgal militari oo sheegeen inay ka fulinayaan taasoo ka dhigan inuu ka sii daray dagaal 7 sano ka socday gudaha dalka Yemen. ciidamada xoogga waxay ku dhawaaqeen in saacadaha soo socda faahfaahin doonaan howlgal ka dhacay Imaaraadka. waxaa sidaas barta Twitter-ka ku soo qoray afayeenka militariga Xuutiyiinta Yaxya Sare. Imaaraadka Carabta ayaa aad u yareeyay joogitaankooda militari ee dalka Yemen 2019 xilli la isku mari waayay dagaalka in sare u kacday xiisadda gobolka iyo Iran. hase yeeshee waxay saameyn ku leeyihiin ciidamada hubeysan ee Yemen ay ku tababareen dagaalada ka socda qariijka ee ka horinayaan Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka ayaa marba marka dambeysa sii kordhaya iyadoo hadda Xuutiyiinta iyo Sacuudi Carabiya ay si toos ah isu farasaarayaan. warar soo baxay asbuuci dhawaa ayaa sheegaya in Sacuudiga uu gabaabsi ka yahay gantaalada wax ka difaaca maadaama ay marar badan aad u isticmaaleen gantaalo lagu soo riday inay isaga difaacaan. hadiiba taasi ay dhab noqoto Sacuudigu wuxuu qarka u saaran yahay in mar dhow sida Yemen oo kala dhulka laga simo. halka waxay nooga wararkeennii habeenimo fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad soo booqato channelkeena subscribe dhoo furo gambalaalka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. soo dhaweynayna General Biixi oo runtii ah saraakiisha isla soo faltarnay anagoo isla yaryar maantana da'a wuxuu u yimid dan iyo maslaxad guud. maxay tahay waa maslaxadu marka xaq naga maqan baadi goob ku nahay inaan helno tusno wadadii loo mari lahaa asna una tuso wadadan wax ku qaadan lahayd. taas waa ku faraxsana. dadow marka ha isku sirminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshin karo. waa og yahay cid walbaa og xaqa naga maqan in la helo asagay dan ugu jirtaa annagay noogu jirtaa Soomaaliya ugu jirtaa. insha Allah xaqaas waa keenaynaa.